بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halkan saxaafada horteeda waxyaabaha shirka jiraayada aan u qabtay waxaa kamid ah safarkii wasiirka dib-u-heshiisiinta Saciid Saalax Ismaaciil maamul goboleedka Raas Casayr uu ku yimid magaalada Muqdisho xarunta caasimadda Soomaaliya oo dowladda kumeel gaarka ay fadhido waxyaabihii u qabsoomay inaan idaacadda kasii dayno aan baahino oo aan gaarsiino dadka Soomaaliyeed wax dhageysta ama wax akhriya dhammaan wasiirku waxa uu kulamo guud la yeeshay xubnaha lamaanka kumeel gaarka ee Soomaaliyeed haddana mar labaad waxa uu kulamo gaar ah la yeeshay xildhibaanada beelaha daarood iyo kuwa gaar ahaan beelaha harti wuxuu ku dhamaaday kulamadaasi inta badan niyadgelyo iyo isafgarad ayay ku dhamaadeen waxa kale uu ka hadlay sidii wax loo qaban lahaa shirka hadda la ganacsan yahay in la qabto iyo sidii magaranaysaay aragtidiisa ku saabsanayd raasir ahaan iyo ka wasiir ahaan aragtidiisa ku saabsanayd shirka hadda loo ballansan yahay odayaasha Soomaaliyeed ay wada imaanayaan sidoo kaleeto waxa uu baaq u jeedinaya hay'adaha caalamiga ah iyo guud ahaan doonarka dalbixiyaasha maadaama deegaanka Raas Casayr ay ka jirto abaar aad u badan guud ahaan deegaanka Raas Casayr labada gobol ay ku kooban yahay waxa kaleeto hadda diyaar u yahay oo hadda hore ugu jira sidii artiga ahaa hore ayuu soo dhaweeyay kuwa kaleeto dhibana hadda ayuu u taagan yahay inuu soo dhaweeyo wasiirku waa mahadsantihiin saxaaba wasiirku waxa uu la ballansan yahay hadda inuu la kulmo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed maalmaha soo socda iyo ra'iisul wasaaraha mudane Dr. Abdullahi Ali Gaas waxaan rajaynaynaa kulamadaasi inay dhacaan sidii loogu talagalay oo ay guuleystaan haddii alla idmo waxaan idin soo jeedinayaa waxa uu si kaleeto ula kulmay wafdigii qaamo iyo isteedyo kaleeto oo aad u fara badan waa salaamantiin dhammaantiin